السلام عليكم والسلام يا دمانتين kusoo dhawaada raacda iyo academy channelkan waan ugu talagalnay inaan dadka Soomaalida aan afkooda wax ku barno ama aan ku tababarno dhammaan adeegyada aqooneed gaar ahaan dhanka tiknoolajiyada aan ku tababarno oo aan ku kala faa'iideysano waxaan doonayaa sidii intiinii hore ee ku xidhnayd aad daawateen ama aad ka faa'iideysateen baalkan leeda Google Classroom-ka oo aan casharo kooban iyo tababaro kooban qaab online aan uga bixinaynay maadaama aan intii hore ka hadlaynay sida macallinka Google Classroom u sameeyo sida imtixaan ugu qaado sida ardayda ugu xaadiriyo hadda waxa ay mushkilad ka timi oo magaranaysaa dad badan ay soo codsadeen oo ku xidhan channelkan bal inaan ku darno qayb ardayga loogu sharaxayo sida uu isu xaadirin karo sida uu attendance ugu qaadan karo si uu imtixaan uga shaqeyn karo waayo markii ay macallinku soo geliyo casharo uu soo post gareeyo amaba uu magaranaysaa ardayda uu ku xaadirinayo mushkilad waxay ka timi maadaama waxaan inta badan uu ku cusub yahay ardayda Soomaalida in bal la baro ardaygu sida uu isticmaali lahaa laftiisa sidaasaan tutorialkan kooban u duubaya marka markuu macallinku sameeyo Google Classroom-kii mar walba waxa cad inuu sameynayo ardayga u direeyo class code-kaasi waa ka ardayga ka caawinaya inuu ku soo diro marka halkan waxaan doonayaa bal ardaygu siduu ugu soo biirayo iyo siduu isu xaadirin karo siduu imtixaanada uga shaqeyn karo siduu activitieska ka socda classka online-ka uga qayb qaadan karo haddii aad haddaba isticmaalayso tababarkan wuxuu khaas u yahay dadka inta badan laptop-ka isticmaalaya saas inta badan u fashalka laakiin haddii aad mobile ka isticmaalayso smartphone Google Classroom-ka waxaad tagaysaa Google Play Store-ka tagaysaa dabtana waxaad kala soo degaysaa Google Classroom app-ka markaad la soo degto app-ka kadib macallinka waxaad weydiinaysaa class code-ka ayaad ku qoraysaa dabtana halka ay ku qoran tahay join class ayaad ku dhufan dabtana halkaas dhigaysaa sida xagga daba qayb kooban ka sharaxdo laakiin haddii aad computer ka sharaxayso computer aad leedahay oo aad laptop ka isticmaalayso waxa muhiim ah inaad horta marka hore leedahay Gmail aad leedahay Gmail-kaas ayaad muhiim oo ku fududeynaya inaad ku soo biirto sidee baad hadda ugu soo biiraysaa waa inaad dhex tagtaa account-kaaga tusaale account-kii ardayga waa kan ardaygana ku soo qaad account-kiisa waa kan marka ardaygan wuxuu u baahan yahay inuu ku biiro Google Classroom macallinkiisii uu ku marti qaaday oo doonaya inuu wax ku dhigto sidoo kale markuu u soo baxo inta badan email-kaaga markuu sidoo kale u soo baxo waa inaad app-kan doorataa Google Apps-kan tag hoos u raac dalkan jiito hoos baan raacaynaa ilaa aad ka gaadhaysa Google Classroom deetana Google Classroom ku dhufo markaan Google Classroom doorto halkan waa inay iga soo baxdaa meel bannaan oo aan wax class online haddii aan class ku jiro halkan buu ii online class oo aan ka arkayo inaan class ku jiro laakiin hadda kuma jiro mar haddaan ku jiro maxaan sameeyaa waa inaan tagaa calaamadan blast ku dhufanayaa calaamada blast labada option bay soo baxay join class create class marka aniga taa u socdo waa join class wax dhufanayaa join class halkan bannaan buu soo baxayaa class code waa inaad macallinkaaga weydiiso ask your teacher for the class code then enter it here halkan markaa waa inaan dhigaa waa inaad macallinkii weydiiyaa class code haddii aan class ku hayn kuma soo biiri karo hadda waxaan ka soo qaaday inaan macallinkii weydiiyo macallinkina uu soo sheegay dadka halkan bandhigi ama ku soo koobiyeen waa ku qoran haddaad haysato mobile aad ka isticmaalaysana just appka Play Store kala soo deg class code-ka weydiiyo macallinka blastano kala arki doonto meel ku qoran tahay ku dhufo join class sii dooro halkan kala dhig code-ka macallinka aad weydiiso join dadabta kolka markaa sidoo kale ay ku soo baxdo aad ku biirto waxaad arkaysaa activity class oo dhan ka socday ayaa ku soo baxay class sidoo ma ku soo baxaya waxaad halkan ku arkaysaa waxa la leeyahay wixii macallinku soo dhigay oo dhan baad arkaysaa adigu halkan markaa ka arki maysid wax kale optionadu waxay ku doontaa had macallinku sidoo u manage gareeyo laakiin saddexdan option ay ka saar stream oo page-ka classwork oo ka assignment-nada iyo waxaasi ay ku jiraan aad kaga shaqeynayso
iyo people oo dadka ku jira inta macallin ku jirta ardayda waxaas kala laga hadlaa laakiin markaad doonaysa tusaale ahaan hoos u raac kor iyo hoos u raac tusaale ahaan waxaan doonayaa waa kuwa waxay optionadii marka tusaale ahaan take your attendance halkan ku yaala waxaa la leeyahay waa saxaadiri hadduu soo dhacay ama waad la kulantay ku dhufo markaad ku dhufato ardayda qaarkood mushkilaha sameeya waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaa arkaya take your attendance ama waxaa arkaya are you in the class deetana halkan ku qorayaa yes no tama waa khalad yes si maaha si official kayd macalinku diyaariyay ama halkan kale private comment ay tagay qoray yes labadan maxay ku dhigay class waa comment kan hadda halkan yes tiraado ardaydu waa arkaysaa macalimiintu waa arkay yani waa wax public laakiin kan waa private comment macnaheedu waxa weeyaan marka doonaysa macalinku wax weydiiso ama aad kale wax weydiiso khaasa wa only me macnaheedu waa private comment waa hal khaas adiga macalinku baa arki karaa marka ardayda qaar baa halkan dhigaya qaar baa halkan yes odhanaya looma baahna kor u bax halkan waxaad ku arkaysaa are you in the class ama take your attendance kor u sii bax halkan waxaa ku taalla yes macnaheedu waa jooga marka yes taasaan ku dhufaya markaan ku dhufto waa inay ahaataa akhtar markaad ka qaadana sideeday ku noqonaysa markaad yes tii aan ku dhuftay akhtar noqoto waxaan odhanayaa tan intan macnaheedu intay warqadda yar biyo saaraya ma hubtaa haddaad gudbiso hadhow waxba kama bedeli kartid haa baan odhanayaa taan baan leeyahay hadda saasaan isku xaadiriyay macallinkiina markiiba wuxuu arkayaa notificationka in ardayga hebel la yidhaahdaa uu is xaadiriyay marka haddaad doonaysa macallinkeed wax khaasa weydiisa halkan dhig laakiin halkan waa for the classka loogu talagalay markaan sidaa u dhameeyo dib baan noqonaya classkii ayaan ku noqonaya maxaa ku xiga assignment baa ku xiga assignmentkan wuxuu yahay waa control of mosquito waan ku dhufanaya marka qaar baad arkaysaa ardaydii bartan u dhigaya jawaabihii uu kasoo jawaabay no that's waxa weeyaan waa classko dhan baa arkaya looma baahno amaba halkan u dhigaya looma baahno halkan wax gaar oo specific aad macallinka weydiiso unbaad doonaysa laakiin markaad doonaysa inaad ka jawaabto control of mosquito waa inaad marka hore kusoo diyaarsataa computerkaaga horta markaa haddaad computerkaagii kusoo diyaarsatay oo aad doonaysa inaad halkan dhigto ad baad odhanaysaa ama create ad macnaheedu waxa weeyaan waa wixii oo aad soo diyaarsatay ayaad ama google drive ka soo qaadanaysaa ama linki baad ka soo qaadan ama file haddaad tagto computerku ku geynaya waa waxaad already documentigaaga soo dhigatay soo diyaarsatay waad soo qaadaysaa deetana waad ku lifaaqaysaa kadibna waad gudbinaysaa macallinka markaa muxuu arkayaa markiiba waxaanaad soo gudbisay waa arkaya soo hadda fahmaysid markaad waxaan qaab kaloo kale u diyaariso ama qaab kaloo kale aad u samayso markaa ad tidhaahday aad soo dhigto tusaalahaan oo kale halkan wuxuu soo dhigayaa ka doon computer ka dhex doon marka halkan uu soo dhigayaa failkii oo computerka ka dhex doon qaab noocaas oo kale buu soo dhigayaa marka taasoo kale markay tahay waa kaloo kale marka select file from the device oo macnaheedu yahay computerka ka soo dhex qaad marka waxaan computerka ka soo dhex qaadaya tusaale ahaan oo kale ka soo qaad kaasoo kale ka soo qaad inuu assignmentkii alka yahay oo soo qaadaya marka wuu dhigayaa markuu dhigo submit baan odhan macallinkii dabeetana si toosa wuxuu ka dhex arkayaa classkii ayuu macallinkii uga dhex arkayaa assignmentkii markaa imanka halkan baa dhigtay waad soo attach garaysay make as a done yacni waa dhamaysay ma hubtaa weeye waayo attachmentiga halkan soo dhigtay hadda wuxuu leeyahay xumaad soo attach garay waayo waan joojinay haddaad attach garayso hadhow waxba kama bedeli kartid ilaa uu macallinku kuu soo celiyo marka mar walba waad iska hubinaysaa inaad wax soo attach garaysid oo tusaalahaan oo kale halkan waa marka aad soo diyaarsatay arday badan tusaalahaan oo kale way sameeyaan sidaa oo way fahamsan yihiin abkan oo kale qaabkan oo kale laakiin qaar badan baa sameeya oo halkan dhigaya jawaabihii hadhowta mushkilad fardoon oo macallinka inay sii confuse kaasi waa kaa marka qaababkaasoo dhan ayaad waxaad la soconaysaa waxa laay wixii update ee macallinkeedii waa galaaskii sidoo kale halkan waxaa laga wadaa waxyaabaha soo socda Wednesday waa berri waxa arbacada waxa soo socda oo dhan halkan bay ka dhacayaan dhammaan waxyaabahaasoo dhan halkan baad kala soconaysaa haddaad isxaadirinayso halkan hadduu macallinku ogol yahay in wax la dhigo waad dhigi kartaa imanka kanoo kale macallinku wuxuu ogol yahay in wax la dhigo waad dhigi kartaa haddii kale waxba ma dhigi kartid oo uu kaa xidhay kumaba soo baxaysa halkan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan qaabkan kooban ayaan usoo diyaarinay
sida ardaygu u isticmaalayo Google Classroom-ka. gabagabada videoga subscribe garee channelkan Raacday Academy, like iyo share haddaan kusii dartana kasii qurux badan si dad badani ay uga faa'iideystaan.